dalkii dibadda laga xoreeyey maanta waxaan jecelnahay dadkiina dibadda jooga inay dalkii dhistaan oo ka joojisaan tashuushka iyo Facebook waxa ku jira qofku waa inuu halku ku soo noqonaya gogashiisa maaha inuu gubo waxa weeye inuu hagaajiyaa weeye waxa jira shakhsiyaad hadda ka shaqeeya xumaanta reer Soomaaliland oo kale saar la maamulka markaa taagan hoggaanka markaa taagan iyo danta ummadda iyo qaranka kala saar la hoggaanka markaa taagan waa la bedeli karaa doorasho lagu bedeli karaa laakiin maaha in qaranka iyo ummadda la kala qeexiyo oo qabyaalad iyo tashuush lagu furo waxaan leenahay taa in ka waantoontaa weeye dadkina dibadda ku dayataan dhalinyarta dibadda joogta dadka dibadda jooga ee tabca sameeyey ee suurtageliyey in dhul aan dowladaba tegin oo ima kale tegey waxa tegey wasiiraha tegey maandar tamayd agaasimii guud baa tegey caafimaadka waxay soo arkeen dhul aan caafimaad ka jirin dhul aan waxbarasho ka jirin bay soo arkeen waxaana taa hor joogtay wada la'aanta waxaan jecelahay fayska labaad waxa weeye inaynu soo kala saarno musharaxiintii maanta waxa weeye waa laga baxay yaa reer hebelahay maanta waxa la taagan yahay waryaa wax qaban karaya yaa karti leh yaa xafiidu amiin ah ayaa laga doonaya xafiidu xakiim waa qof wax aamina aqoontina leh baa la doonaya waxaan jecelahay in maanta dadku ku footeeyo qofka wanaagsan ilaahay ka baqayo dumar baa jira iyagana musharaxan dumarka waxaan jecelnahay in iyagana gacan la siiyo waxaa igula jira dadka laga tirada badan yahay iyagana waana gacanta la siiya waa inaan dhisnaa dowlad iyo qaran loo wada dhan yahay oo loo siman yahay inaan dhisnaa oo cadaalad ku shaqeeya markaasa ilaahayna arsaaqada inoo badin doona waa maqli doontaan dad badan oo maalmahan ku odhan doona waan ka baxna ucid dadkaas waxa weeye waa dadkii shuruudaha ka soo bixi waayey ee laga in adeerkiisii la ordiyey uu ka dadbatay